بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد دمان شعبك الصومالي ميلي جوجان با بحر الصحافة دا عليكم السلام وسلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب waxaan rabaa inaan ugu hormariyo hadalkayga xaaladda dalka gaar ahaan dhinaca abaaraha iyo duruufaha adag oo runtii taabanaya bulshada Soomaaliyeed meel ay joogaanba una baahan in gurmad degdeg ah lala gaaro waxaad la socotiin abaari inay saameeyeen dad badan oo Soomaali ah noloshoodii biyo la'aanta baad la'aanta intaba marka waxaan rabnaa inaan ugu baaqno dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan marka hore in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sida laga bartay maadaama dad muslimiin ah la isku daro toobadkeen iyo alla bari iyo salaada loo dukado roob doonka la yiraahdo waxaan baranay in sida badan bani aadamka loo qayshado waa banaan tahay laakiin sida fiican waxa waa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala deeqsiga ah in asagaas loo carabo marka culimada iyo waxgaradka iyo maxay ahaato dawladda qaybaheeda kala duwan in dadka lagu booriyo toobadkeen iyo roobdoon in lagu booriyo taasaan soo jeedinaynaa taas kadibna waxaan ku xijinaynaa in dadka waxaysta ee Soomaalida ah dadka walaalahooda ay u gurmadaan qof walba maanta duruuf hayso wuxuu u baahan yahay in la garab istaago dadka waxaysta maalku waa amaano Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu noo dhiibay haddaad maanta bixisana adduunyo aakhira waxaad helaysaa kaalmada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maalin aad uga baahi badan tahay maanta ayaa kugu soo socota marka dhamaanteen waxaan isu dardaarmaynaa in arrintaas loo istaago taas waxaan rabaa inaan ku xajiyo qodobka baaqa ama gogasha maxay ahaato xukuumadda ay fidisay oo aad la socoteen ujeedadu inay tahay marxaladda kala guurka si looga gudbi lahaa in laga wada hadlo oo heshiis laga gaaro madasha ama golaha mustaqbalka waxay aad iyo aad u falanqeeyeen baahida loo qabo marxaladan in la helo heshiis siyaasadeed oo keeni kana in doorasho raali la isaga yahay wanaagsan dadka Soomaaliyeed maxaan ku iraahdaa rabitaankooda iyo dowladooda xaqiiji karta in la helo isla markaasna laga baaqsado waqti kororsi iyo waxaan ku iraahdaa jiitan hay'adaha dastuuriga ah sida ogtihiin bila kooban ayaa ka dhiman waqtiga dawladda taasna waxay waajib ka dhigaysaa in go'aan laga gaaro laga wada tashado hanaanka doorashooyinka 2026 dastuur sidiisa wuxuu u shaqeeyaa ummad wuxuuna ilaaliyaa masaalixdooda kala duwan taas ayaana muhiim ah mar walba laakiin muhiim ma aha inuu qolo ama qof uu ku fikiro inuu kursiga sida uu ku joogi karo uu ku sii joogo ama uu abuuro khilaafaad keena dadku inay kala isdhoobaan ayadoo waliba xaaladda hadda lagu jiro xaalad adag ay tahay dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda arrimaha bulshada ama nolosha iyo dhaqaalaha ay adag tahay dadka Soomaalida maanta waxay waajahayaan duruufo aad u adag oo taabanaya jiritaankooda midnimadooda marka waxay u baahan yihiin dadaal ka badan kii hore dabacsanaantii hore ka badan oo keenta inay awoodooda midaayaan si ay wax uga dhihi karaan awood ugu yeelan karaan inay ilaaliyaan jiritaankooda maanta waxaa la socotiin loolanka ka jira geeska Afrika meesha aan degannahay loolankaas in mataqaanaa dadka Soomaaliyeed ka soo gudbaan waxay u baahan yihiin midnimadana cidda la rabo inay hogaamiso waa dawladda marka runtii waa nasiib darro aan u aragnaa maanta waxa baarlamaanka ka dhacay in lagu mashquulo baarlamaanka oo waqtigiisa dhamaaday inuu ku mashquulo wax ka bedel dastuurka dalka heshiiska lagu ahaa hore u soo socday prioritiska maanta u yeela dalka laga leexdo ee la abuuro khilaafaad iyo maanta waxa meesha ka dhacay runtii aad iyo aad aan u aragnaa inay yihiin nasiib darro marka waxaan rajaynaynaa madaxda dalka inay ka leexdaan ka joogaan arrimahaas u istaagaan waxyaabaha hore tabinta leh oo ay ugu horeeyaan in heshiis laga gaaro doorashooyinka intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa wax yar inaan mataqaanaa wax ka sheego dastuur sidiisaba muxuu macna ku sameeyaa ummadda Soomaalida maanta maxaa muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed maanta waxaa muhiim u ah midnimadaasuna waa wax Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u dhaliyay wax oo dastuurkeena ma ah Ilaahay Soomaaliya naga dhigay muslim naga dhigay meeshaan nagu beeray
aynagoon dastuur iyo heshiis iyo waxaan leenahay la arkin midnimadaas marka waxay ka weyntahay wax hadda noo yaal oo dastuurka oon ka shaqaynayno ayay ka weyntahay marka midnimadaas in la ilaaliyo waa waajib saaran madaxda waa waajib qof walba saaran marka waxaad la socoteen walaalaheena mataqaana gobollada waqooyi muddaba tabashay qabeen wadahadalla ayaa socday wadahadalladaasu meelay soo gaareen laakiin marxaladda hadda la joogo khaladaadka mataqaana dowladda hadda joogto darteeda waxaa dhacay runtii waxyaabo aan la filaynin meesha Soomaalidu hadda ixtiraafka ay ka raadiyeen iyo ay ka raadiyeen meel la filayo ma ah runtii uguma cudur daarayno oo intaad midnimo ka carartid inaa meeshaas aadis wax la aqbali kara ma ah laakiin haddana dowladda hadda joogta iyo nidaamka hadda jira eedo ku leeyahay waxa waaye inuusan ilaalin waxyaabihii soo dhaweey lahaay inuusan ka shaqeynin waxyaabihii soo dhaweey lahaa midnimada oo bilcagsi oo ka shaqeynayay inay sii fogaadaan waxaa ka mid ah sidaan horeba u sheegnay mataqaana dhoofinta xoolaha oo dhib badan lagala kulmay waxaa ka mid ah fiisooyinka lagu soo rogay dadka ka yimaada dibadda iyo waxyaabo badan oo kale oo kulligooda keena inay sii fogaadaan walaalaheen marka arrintaas waxaan leenahay arrin sax ma aha dowladda waxaa laga rabaa inay la yimaadaan laftigoodu arrimihii keeni lahaa in la isku soo dhawaado wada hadalkii dib loo furo laga wada hadlo qadaayaadkii hore u yeelay oo labada dhinac dhex yeelay walaalaheena ruuqooyina waxaan rabnaa inaysan caradu la fogaanin meel khaldan aysan la aadin oo Soomaalinimadu waa waxaan u simannahay ummadnimadu waa waxaan u simannahay waana wax Ilaahay subxaanahu wa ta'ala na siiyay oo nicmo ah oo qof walba Ilaahay subxaanahu wa ta'ala birri oo ka weydii doono marka inaysan birrito meelaysan ka soo celi karin ummadda inaan la geenin ayaan ayagana ugu baaqaynaa waxaan rabaa intaas inaan ku darsado walaalaheena reer waqooyiga midnimada u yimid midnimada u taagan reerahooda uga soo tagay mataqaana dad xukuumadda ka tirsan ama dad mooda meeshay u socdaan xukuumadda inay sax tahay ku aflagaadayaan ayagana waxaan leenahay raaligelin buuxdaan ka bixinaynaa Soomaaliya tihiin waxa u taagan tihiin wax aad iyo aad u qiimo badan waaye in la idinku gardaroodo adinkoo midnimo u joogtiin runtii idinma qabato dadka arrintaas sameeyana runtii waxay sameeyeen khalad ayay sameeyeen marka waxaan leenahay dadka Soomaalida aan uga digaynaa arrimaha keenaya dadku inay kala fogaadaan ama dhaawac ay gaarsiiyaan moralka dadka u jooga midnimada in aad iyo aad looga taxadiro waxaan rabnaa marxaladda soo socota oo runtii marxalad muhiim ah oo dhinacna abaara ka jiraan dhinac dagaaladii al-shabaab iyo al-qaacida ay ka jiraan dhinac khilaafaad ka jiro waxay u baahan tahay dadaal ka badan dadaaladii hore dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay runtii u diyaar garoobaan in marxaladan lagu gudbo sila midnimo iyo wadajir waxaan rabaa inaan bogaadiyo ciidamada qalabka sida dhamaantood howlgallada ay ku jiraan inta dhimatan Allahu naxariisto inta dhaawacana Allah caafiyo runtii waxaan u aragnaa inay geesiyaal sharaf iyo qiimo badan yihiin ay guteen waajibaadkoodii iyagoo ku jira duruufo siyaasi ah duruufo mataqaana dhaqaale oo taabanaya ku jira inay haddana muujiyaan in ay gudanayaan waajibaadkii qaranka ay u dhaarteen marka aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.